بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت بيشو تعواشين توانك بيشي لبي طبنات هذا كون يستوي توانك هذا كان إلا ساكا وحنا نشوفنا ودك سجي خاصة دحى الدجولياش صبحي ساكا يلا بلونا إلا وقت حاضر كان الله بي توانك يا مرجان سكول كيجيني ده حبسة من سعود كيسي سيدي دي بورتو شقينا سكولكم iskuulka wax macallin walba iyo ardayda sidii bay u dhiganaysaa horta wax xaraqalada oo ka jirtay ma jirto laakiin waxa jirta hawl ayaantii khamiistii dhacday oo ardaydu ka cabaneen ardayda ma aha macallimiin kamida dugsiga qaar iyo ardaydii jaamacadda dhamaysatay ee dhagoolayaasha ay cabanayeen gaar ahaan laayna maamulaha dugsiga laga bedelo ay sheegeen in wasaaradda waxbarashada soo mareen taliya qaybta barasaabka hore soo mareen waxaan qirayaa horta waa runtood anagu waan saragnay ardaydaas waxay u arday jaamacadda ka qalin jabisay ayaana ay timid oo ardayda dhagoolayaasha waxay sheegeen in iskuulka dhagoolayaasha wax ka qabtaan waxaan isla qorsheynay inaan san wax uga qaban lahayn am qorsheyno ana ka qayb qaadano qorshii markaan u dejinay ayaa waxay yiraahdeen waxa kale oo u baahanahay bareefad ardayda maadaama imtixaanka eerka galayaan lagu kabo ee dugsiga nasi kii waanu dhameystiro iskuul baan siiyay Sheekh Cabdiraxmaan leeyahay way dhigaan ilaa hadda laakiin qorshoogii markii aanu eegnay ee waxaan ka qabanaysnay iyagu yiraahdeen kugu soo noqonaynaa waxay ka fikireen iyagu yiraahdeen meesha nacam hay'adaha wax kaga qaadanayna oo barnaamijyo haddii wax tar u leeyaan ku bal soo qora horta soo qoradii bay iga maqan yihiin iyagoo tii ku maqan bay maalin kale iskuulka nimiday yaan qaar kamid ah saragnay waxay ujeedada dhan ay sheegeen oo ujeedadeeda qoran ma ku dibnaha waxa rabnaa dugsiga waa dugsi dhagoolaa aanina noo dhistay hal macallin oo dhaga qabin uu jooga ma rabno kulliye kuna dawaa xaqiiqda way sheegayaan marka waxaan ku dugsiga marka dhagoolayaashii macallimiinta dhaga qabta laga saaro dugsiga waa hoose dhex saraba jiro dugsiga shaqal jawar bay ku dhigtaan inay jaamacad ay dhigtaan camudeed intaas way xiriirsan waxaan ardayda maalinta inta la fadhiistaan ku bari oo kala yimaadeen macallimiinta oo yeeraan kuwa macallimiinta dhagaha ala meen ku wari waxa jeceshiin in la inta takooro waa dhagoolayaal khaliya la yiraahdo mise inaad ummadda la mid haataan oo imka secondary dhagoolayaal ina ma jiro jaamacad in khaas ina ma jirto laakiin waxaan la mid tihiin horta inaad ummadda waxba kaga duwaneen aan isla qaadano waxaan isla qaadanay in ummadda waxba kaga duwaneen siman yihiin waxbarasho wada baahan yihiin ayna kala maarmeen tirada aragtaa tirada dhagoolayaashu way aad boo yartay imka dugsiga dhan 60 arday baa jooga fasalada qaar 3 qof aa dhiganaysa hal qof oo dhagalaadu yimaado waxa macallimiinta aan amray in halka qof loo dhigo una dayacmin sida muuqaalkiina aad ka argayseen halka qof si aqoon iyo waxbarasho u helo tiyaku waxay way habaani gudadeen dugsigu wuxuu u baahan yahay yiraahdeen meed basketballka in maxaa volleyballka lagu ciyaaro kubadii ma haysano kubadii caadiga ma haysano qorshe noocay ay keeneen kubadii iyo maxaa shabagii basketballka wixii lagu ciyaariyo dhan agabkii ciyaareedna waliba waxaan ugu dhiyay macallin kamid oo kala aragtay macallinka garanka cas isagii hor ordayade maxay cali Ismaal leeyahay yaan ugu dhiibay waxaan ka sheegayaan dugsigan maanta waxa jooga 6 macallin oo dhagoola ah 6da macallin intaan jooga hal macallin bayroolka kuma jiro 3 kamida oo imka bayroolka qaata intaan imdaan ku soo daray 3da kalena waxaan ku wado 3 ugu fiicnaa kale iyaguna si temporary iskuulka u joogaan oo systemka waxbarashada inay soo galaan anaga jecelna dadka dhagaha leh ay helaan xuquuqdoodii systemkii ay kamid noqdaan muxuu ahaayay wuxuu dalku leeyahay iyaguna marka ay dadka siman yihiin laakiin suurtagal waxayna ahayn imka haday leeyeen maamulahoodu waxa ujeedada dhan iyagu ka rabaan dhammaan waxa macallin dhaga qabaay yuna meesha noo joogay anaga aanina noo dhiste marka dawladnimada iyo systemka iyo waxay rabaan ayaga waa discrimination ba ku dhacay iskuul dhagala oo hal qofna soo dhaxgaleen bulshada ka takoornaadaan maayna waa inay bulshada ku dhex jiraan xuquuqdoodana helaan laakiin intii mudaharaadaysa dad dhammaantood soo eegtaan dhammaan waxay wada haayeen 3 macallin kuwii halkan wax ka dhigaya iyo kuwii jaamacadda dhamaystay qaarkood waxbarasho lagu haleyn kareen oo
qaarna ay dhigtaan jaamacadda Camudiyad weli ayna jaamacadii inay dhamaysan halkan markaa ka sheegay bal macalinka ama maamulaha ay ka cabanayeen macallimiintaasi saad arkayseen macallimada markaan weydiinay waan la joogay lahayd waa kuwii iyaga wax soo baray maamulahan muddo 20 sano jooga meel kasta loo geeyo sign language ka macallimiinta wax dhigaysay waa kuwii iyaga ka saaray dugsigan hoose dhexe ula uga bilaabay ilaa iyo jaamacad haday maanta leeyihiin waxa la noo keenay macallimiin cusub oo farta garanayn wasaaradda qaldan laakiin haday leeyihiin macallimiintii sii joogtay hana dhaafaan horta waa qof kulleeyay waa qof dhagaa inaan ixtiraamno waxyaabo badan oo ilaa intan macallin meesha joogta waa macallimiin khabiira muddada iskuulka la furo dadkii wax ka dhigayo hal macallin oo cusub oo aanu intaan joogo ama hortay la keeno xataa sign language garanayn ma jirto waxaan imika raadinayna macallimiin kale sign language oo dugsiga sare iyo jaamacadda ka fargaray sababtoo waxay u baahan yihiin imika 8 macallin baa jooga waxa loo baahan yahay in hadii fasal kasta oo wax laga dhigayo inuu joogo macallin dhaga qaba oo markaa sign language ka yaqaan sheekh Aljaar waxa nooga baahan tahay 1 ilaa 4 weeyaan 1 ilaa 4 kaasi waxa u baahan tahay 10 macallin iyo fasal walba u baahan yahay oo maxay 10 macallin maadada Ingiriiska ki turjumay maadada sayniska ki yaqaan turjumay qorshaan u sameeyay waxaanu barna sign language ka macallin kasto maadada dhiga waxay u baahan yihiin hadii la yiraahdo hawshooda la dhameystiro sheekh Aljaar kale taa 40 macallin u baahan oo macallin kasta inuu maadadii sayniskii ki biology turjumay yaqaano ki markaa juqraafiga turjumay yaqaano waana dugsiga kale haata ee la siiyo kab dugsiyada imika u jii problem kaayo dhan wax kale ma waxay leeyihiin am kabka iskuulka inay iyagu manage gareeyaan waana cid outsider-ka ka wasaaradahan horta macallinka dhagaha la iyo ka dhagaha qab waa isku sharci ninka macallina ee isagii intuu mudaharaaday la maamulaha naga bedelo waxa intuu waraaq soo qoray in wasaaradda waxbarashada uu yimaado wuxuu ka cabanayo hadii macallimiinta dugsiga ka wada cabanayaan maamulaha waa issue gaar noqon lahayd laakiin sadde intoodii dhagaha lahayd inay yiraahdaan meesha ka tago maamulo anagana hal nagu wareejiyo nidaamka dawladda oo ogolaaneen kuwa markaa wasaaradda ku dhex jira qof kasto sharci darro sameeyay sharciga laga maray kuwa dibadda jooga ee jaamacadaha dhameeyay ee u haysta haday horumar ka rabaan in iskuulka gaarsiiyaan waxyaabaha u baahan yahay in la dhameystir lahayn waxaan ku oray soo mar rabtaan iskuulka horumar gaar maxaa ka dhiman sign language inama shaano dhigna temporary nagu qoray may kuwa hore dhaafaan ilaa anaga noo khaas yeelo wax kama qabanayna suurtagal ma marka waxaan insha Allah ku soo koobaya iyo dadku dadgala u baahan inaad in badan isfahantaan laakiin waxa alxamdulillah ardaydii sideediina wax u dhiganayso oo qolooyinka media waxa la sheegayaa ardaymo mudaharaadeen waxaad inaguna ku dartaan macallimiin bay haayeen iyo dad jaamacadaha dhameeyay soona wareysta intii hadashay haday noqdaan arday wax dhiganaya imka fasalkii oo kala wada joogo hal arday oo wax dhiganaya haduu ku jiro soo aragteen arday baa mudaharaatay haday haayeen macallimiintii wax u dhigaysay intii dhagaalayd iyo kuwii dibadda jaamacadda dhameeyay oo leh maadaama nagu soo dhamaysan halkii aanu shaqo gal lahayn kuwa hore dareeriya waxa maragnigu filan macallimadii lahayd waa maamulahaygaan wax soo baray laakiin imika ha dhaafo meesha qofka caadiga dareenkaasi ma siiyeen qofka wax soo baray ixtiraam buu laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaanu ilaalino soo dhaweyno balse wax u fahmayaan aanu la qaadano laakiin cid kasto dibadda ka timaado imka hore waxa uu sameeyeen aanu weeday baldaji inay iskuulka waashmaanka dilaan wadaga dagala inaad yar dajiso bal tilmaamto ay u baahan tahay laakiin saxaafadda waxa naga sheegay inta ka jirine 6 arday lixdii macallin ee hadlay qaarna macallin bay haayeen ninkii Maxamed Cali ee garanka casa intii hadashay hadaad iskuulka ku soo aragtaan biri sahan dambe bil dibadda soo noqdo oo arday yihiin waruntood waxay sheegayaan laakiin haday yihiin dad jaamacadda dhameeyay oo la kuwan hore hana dhaafaan ninka waxa weey nin la aabahay meesha yuna joog ila macallinku waa waalidkiisii marka insha Allah idinkuna saxaafadda waxa liiga baahinad xaqiiqda raadisaano wixii ardayna ardayd ku sheegtaan wixii macallinaad ku sheegtaan wixii suuq joogad ku sheegtaan taytan aan leeyahay hayga qaadina waxaan lahayn hay siinina
marka insha Allah de saxaafadda wax looga baahan inaad inaguna soo baadhaano soo ogaataano xaqiiqda jirta marka taabataan documentary sax ka sameeysan haddaan waxaan sheegay tahay oo intii mas'uuliyad ilaashanayo iga qabta laakiin waxaan sheegayaa inay macallimiintaasi ka hor ay bilaabay rol haayeen saddexda kamid ah saddexda aan keenay lixda macallimo maanta ka wasaaradda anagoo ilaalinayna bal inay dhiirigelin iyo waxay leeyihiin xaq dhagoolayaal ilaalinayna maanta ma ahayn inay raadaan baahida tanks waa dadka caadiyeena waxaan ka filaynahay laakiin iyaga waan ilaalinayna haddana u arki mayno inay dhibaatayeen waa dad dagala dareemaya inay wax ka maqan yihiin intii dhagoolnimo yaan oo ixtiraamayna oo la dhaqmayna sidii dadka dhagaha qabay insha Allah waxaan laakiin waa in la baraa deelan systemku soo noqonaya dawladnimada qaabka wax loo doono waxa ka dhiman waxay xaq u leeyihiin iyo waxay xaq daraa marka haday leeyihiin wax xaq daraa oo laga dulmay yahay waan sameyn lahayn laakiin cid dagala ina nala noolaan waa daboormiyeen cidna nagula noolaan bay noqonaysaa marka aad baan u mahadsantihiin iskuulkii iyo nidaamkiina inaga ka maraga berina waad iman kartaa noo ka maqan saan damar waad iman kartaa noo ka maqan marka aad aragtaan wixii iskuulku leeyahay waa waajib in la fuliyaa arday inuu xiisad waayaa waa dambi haday taasi dhacdo waa mas'uuliyadeedii cidii lahayd inaan kula xisaabtano aad baan u mahadsantihiin kulay markii hore waxa ay ku dareemayeen oo marka ka sheegaya oo ay sheegeen nacam shaqaalaysiinta la naga qayb galin waxa koota ugu xidhan tahay waxa weeyaan waa shaqo qaran kootadii shaqo qaran wali lama qaban waxaan rajaynayaa bal qaar kamidii maalinta shaqo qaran ay soo baxdo haday ka mid noqdaan